bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal rabadaan wanaagsan meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartaan youtube-ka ku leenahay eron sheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa kamid ah nabad iyo nolol oo guul weyn ka gaartay doorashadii aqalka sare iyo mucaaradka oo kala jabay axmed karaash oo gaaray gaalkacyo iyo ujeedka safarkiisa ruushka oo ka digay khatar dagaal oo ballaaran oo aan horey loo arag qodobadaas iyo qodobo kale saaxiibada inagu xiran oo idiin soo gudbin doona hadduu rabbi raalli ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis la idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan like-na aan ugu dhiirigelisaan maleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad oo heshaan idinka alle saaxiibayaal si hordhac warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno nabad iyo nolol ayaa guul weyn ka gaartay doorashadii aqalka sare sidoo kale waxaa jab xoogan uu soo gaaray mucaaradka dowladda doorashada golaha aqalka sare ayaa maanta waxay ka dhacday teendhada afisyooni ee magaalada muqdisho iyadoo amnigeeda aada loo adkeeyey gudoomiyaha golaha aqalka sare waxaa ku tartamay 3 xubnood oo kala ahaa cusmaan abuukar dube cabdi xaashi cabdulaahi iyo saalax axmed jaamac gudoomiyaha waxaa ku guuleysay cabdi xaashi cabdulaahi oo mar kale xilkaasi loo doortay iyadoo 4 cod oo kaliya kaga hormaray senator saalax axmed jaamac gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee golaha aqalka sare maxamed cabdi yuusuf gaagaab ayaa ku dhawaaqay natiijada isagoo oo sheegay in cabdi xaashi uu helay 28 cod saalaxna ayaa helay 24 cod halka senator dubba uu helay 2 cod oo kaliya warar soo baxay ayaa sheegay in cabdi xaashi uu haysto taageerada nabad iyo nolol iyadoo durba loo tirinayo inay iyagu dhaqaale ku bixiyeen guushiisa oo ay dubaaldegeen cali yara cali oo ah taageeraha ugu weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa si lama filaan ah uga hadlay guusha uu gaaray cabdi xaashi ee gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi wardheere oo war qoraal ah soo saaray ayaa si lama filaan ah u hadlay doorashada gudoonka aqalka sare ee ka socota afisyoone taasi ayaa muujinaysa in nabad iyo nolol ay garab weyn siisay cabdi xaashi oo si lama filaan ah ugu guuleysay kursigaasi maadaama dagaal siyaasadeed uu kala dhaxeeyay villa Soomaaliya waxay arintani dhabarjab ku noqonaysaa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo saaxiibadiisa siyaasadda kuwaas oo markii hore u haystay in cabdi xaashi uu iyaga ku lamaan yahay balse warar soo baxay ayaa tilmaamaya in mahdi guuleed iyo sidoo kale madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ay kulan gaar ah la yeesheen cabdi xaashi una sheegeen inuu isu diyaariyay inuu noqdo gudoomiyaha aqalka sare taasoo ahayd go'aan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo gaaray maadaama ausan jirin qof kale oo la tartami kara senator cabdi xaashi cabdilaahi guusha cabdi xaashi ayaa si lama filaan ah waxa uga hadlay cali yare waxa uu tilmaamay una sheegay dhammaan senatarada inay codka siiyaan ka hor inta aan la dooran taasoo muujinaysa kalsoonida ay ku qabaan iyo taageerada ay u muujiyeen cabdi xaashi kooxda nabad iyo nolol waxay booska kala baxday dagaal siyaasadeed oo muddo ka dhaxeeyay labadaasi dhinac waa villa Soomaaliya iyo cabdi xaashi cabdilaahi waxay dhabarjab siyaasadeed ku noqotay kooxda ka macaasha isku dirka iyo ka shaqaynta burburka dalkeena sidoo kale saaxiibayaal hadalka cali yare oo aad u dheeraa ayaa sidoo kale waxaanu ka xusi karnaa qormo uu ka qoray senator cabdi xaashi kaas oo ku tilmaamay in xoogiisa caqligiisa iyo cilmigiisa uu geliyay dalka waxa uuna tilmaamay inuu yahay siyaasi xor ka kana madax bannaan dhammaan kooxaha isdiidan ee xukunka dalka isku haya waxa uuna sidoo kale sheegay in uu mudan yahay in abaalmarin lagu sharfi doono loona dooran doono mar kale aqalka sare taasoo muujisay tuhunka ah in nabad iyo nolol ay gadaal ka taagan tahay cabdi xaashi cabdilaahi oo mar kale hogaanka u qabtay senatarada aqalka sare taasi oo ah guul u soo hoyatay nabad iyo nolol cabdi xaashi ayaa 4 sano hore xilkaasi soo hayay waxa uuna mudooyinkii dambe dagaal siyaasadeed oo weyn u la galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo balse mahdi maxamed guuleed khadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo saaxiib dhow ay yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa miiska soo saaray cabdi xaashi in mar kale loogu taageero inuu xilkaasi ku soo baxo
nabad iyo nolol ayaa waxay dhaqaale badan ku bixisay si halkaasi uu uga soo muuqdo cabdi xaashi cabdilaahi kaasi oo markii hore dagaal siyaasadeed uu kala dhaxeeyay balse hadda ay gacmaha isqabsadeen si wada jirna aqalka sare ay fooqa ka fuuleen ayaa ka dhigan in mucaaradka dowladda waagu ku bariyay sidoo kalena ay hadda ka fajacsan yihiin sida looga dulqaaday cabdi xaashi oo ay markii hore isku haleynayeen una haysteen inuu yahay mucaarad dowladda balse hadda ay u muuqato in kooxda nabad iyo nolol oo la safan yahay sidoo kale waxaa la filayaa inuu hadda laga bilaabo ka shaqayn doono soo laabashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay Soomaaliya maadaama nabad iyo nolol oo dhan ay ka siman tahay in madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukunka dalka dib ugu soo laabto qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa kamid ah Axmed Karaash oo gaaray magaalada Gaalkacyo sidoo kale waxaanu ogaanay jeedka safarkiisa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay Axmed Karaash iyo xubnaha la socday oo safar dhinaca dhulka uga soo ambabaxay magaalada Garowe ayaa waxa ay Gaalkacyo ku soo dhaweeyay maamulka degmada Gaalkacyo ee Puntland saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gaalkacyo wararkaan helayna ayaa sheegay in ujeedka safarku madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash oo halkaas ugu tagay waa magaalada Gaalkacyo ay tahay baaritaan weerarkii lagu qaaday guriga nabadoon Yaasiin Cabdi Samed oo ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya safarka madaxweyne ku-xigeenka Puntland ee magaalada Gaalkacyo uu ku yimid ayaa waxa ku weelinayay gudiga uu dhawaan u magacaabay baaritaan weerarkii lagu qaaday guriga uu ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa magaalada Gaalkacyo uga qayb gali doona munaasabad uu xilka kula wareegayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug kaasi oo bedelaya gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo ka mid noqday xildhibaanada golaha shacabka safarkan uu madaxweyne ku-xigeenka Puntland ku tagay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ku soo aadiyay xilli uu sii xoogaysay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa kaasoo salka ku haya arrimaha awoodda maamulkaasi waa Puntland qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa kamid ah Ruushka ayaa ka digay khatar dagaal oo ballaaran oo aan horey loo arag wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegay in hubka reer galbeedka la geeniyay Ukraine ay ka dhigan tahay in xulafada NATO ay dagaal kula jiraan Ruushka isagoo ka digay in ay arintani horseedi karto khatar dagaal oo ballaaran oo gobolka ka dhacda wareysi la sii daayay Isniintii ayuu ku yiri hoobkani wuxuu noqon doonaa bartilmaameed sharci ah oo loogu talagalay militariga Ruushka ee ku hawlan hawlgalka gaarka ah waxa kale oo qiray in ay jirto suurtagalnimo isku dhac oo gaar ah hubka nuclearka isagoo la hadlay janaalka koowaad ee Ruushka waxa uu sheegay in Moscow ay doonayso inay ka fogaato khataraha dagaalkan oo kale tani waa meesha ugu muhiimsan ee aan ku saleynayno wax walba khatarta hadda waa mid aad u badan ayuu yiri dhanka kale Ruushka ayaa sheegay in uu baari doono waxa dhaliyay dab weyn oo ka kacay xarunta shidaalka lagu keydiyo oo ku taala magaalada Bryansk muuqaal lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya waxa uu muuqaal laba qarxay iyadoo dab xoogan markaasi kadib qabsaday xarunta waxa saaxiibayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV fadlan hadii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadaan like na nagu dhiirigelisaan gamalka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle